waxaan jeclaystay inaan ka hadlo khilaaf maalmahan aad loo hadal hayay oo ka dhex taagan maamulka sare ee degmada oo bulshada ku dhaqan degmadu waxoogaa hadalkaasi ay isku khilaafsan yihiin inaan u caddeeyo wuxuu ku yimid iyo halku marayo. marka ugu horeysay ee khilaafkeygana bilaabmayay waxaan xafiiska maayarka ku galay yeedhmo uu ii yeedhay maayarku isagoo ii diraya khilaaf ka dhacay walaalgood tuulada walaalgood inaan soo xalliyo. si kastaba ahaatee hawshaa markaan ugu saro kacay aan xafiiskiisa u galay waxaa timiday inuu dokumentiyo soo hordhigo dhul aanu aqoonsanahay dan guud oo ah sayladda xoolaha halka cashuurta aan ku qaadno ee uu yaallo ranjiga xoolaha lagu calaamadeeyo marka la cashuuro. dhulkaasoon aanu aqoonsanahay inuu yahay dan guud ayaa maayarkuna wuxuu ka sameeyey go-aan guddi fulineed inuu cid siiyo kabacdina saxiix ayuu yidhi. aniguna xaq waxaan u lahaa baan u sheego aan ku ii meesha aan soo eego khilaaf dhulkan cidda iska lahayd iyo waxay ku lahayd iyo asbaabaheygina aan dabagalo. taas oo uu iga diiday oo yidhi ilooba ilaa saxiix. taasina waxay noqonaysay amar annagu aan ka diiday waxay keentay khilaaf inaanu halkii waaflagaado dheeraada ii geysto aniguna aan ka adkaysan kari waayo. kaasi waa sababta keentay khilaafka. waxa ka dambeeyey qoraallo ay sameeyeen maayarka iyo xogayuhu oo ay leeyihiin waxaan shaqadii kaga joojinay maayar ku-xigeenka taasoo ah awoodda councilka saananu ogahay ama sharcigu yahay. anuu xilka aan hayo cidda ii igmatay waxa weeye xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Boorama. hawsha aan hayana iyaga ayaa ii ansixiyey. hawl uu maayar leeyahay oo uu ii igmaday wax ka jira ma jiro. haddii la helo warqad uu igu igmadayna dee tajoojintiisuna way soconaysaa markaa. laakiin waxaan soo galnay xero nidaam iyo shuruuc leh oo shaqadeedu socotay oo ay kala caddahay. sidaanu shaqada ku soo galnay mid walba hawshu ku magacownaa. maayarku wuxuu hawl haystay sideedii buu haystaa. maayar ku-xigeenkuna wuxuu haystay aanu xerada ugu soo galnay ee golaha deegaanka ee cusubna ay noo ansixiyeen sidii baan u hayaa. waxaanan aqoonsanahay inuuna maayar shaqo iga joojin karin. cidda keliya ee awoodda degmada lehina waa xildhibaanada. xildhibaanadu haddii ay fadhiistaan oo yidhaahdaan maayar ku-xigeenkii shaqada waanu ka qaadnay waa tu cidina aynay hor istaagi karin oo dastuur ah. laakiin xildhibaano ama councilkii xilkii aanu hayay aan iga qaadin oo xogay leeyahay shaqadii baan ka joojiyaa ma hayo sharciga meel ay kaga jirto. taasina waxa weeye halka ay xaal marayo ilaa haddana wax khilaafka iyagii xukuumadda soo dhex gashay ma jirto. maamulkii gobolka iyo kii wasaaradda arrimaha gudaha ilaa hadda cid shuruucdii iyo nidaamkii iyo dastuurkii dalka u yaalay sidii uu ahaa nagu hagaysa oo maamula ma hayno. waxaa kaloon jeclayn in maamulku arrinka faragelin soo sameeyo intaan khilaafku sii xoogaysan. bulshadana waxaan ka raali gelinaynaa hawshii ay naga sugayeen oo ahayd waxqabad oo ahayd horumarka degmada oo ahayd inaan ku soo kordhinno wax cusub oo ilaa hadda xaalkaygu naga yaraa foolxun yahay oo aanu ilaa hadda khilaaf dhexdayada ah mooyaane wax horumaran degmadu haynaa ay aada u yar tahay. marka mar walba waxaan jecelahay anu in miiska wada hadalka la yimaado oo wixii xaq aan u leehayna la siiyo wixii aan ku gardaranahayna aan ku qabsoomo oo la yidhaa waad ku gardaran tahay intaa. bulshada waxaan leeyahay
warka xaqiiqda ah ee saxdina waa kaa kaalmo iyo waxaan iyo maayarkan suuqa qabanay oo kale nama jiraan waa kutrikuteen waraaqo website-da waxa ku jira hadalla iska mala awaala laakiin mala awaalkaasi waxaan ku xaqiijinayaa warka saxda uu yahay ka maanta aan sheegayo oo khilaafkay uu ka yimiday dhulka danta guud aan oo aqoonsanahay ee saylada xoolaha ah oo la sharciyeynay aniguna taa aan ka diidan kor istaagay mar walbana waxaan ku soo gabagabeynayaa in dhulka danta guud la ilaaliyo in bulshadu dhinac ka joogsato in xukuumaddu dhinac ka istaagto dhulkii danta guud ah ee dadweynuhu lahaa dhammaan way dhamaadeen waxa hadda la ii sheegayay gurigii wasaaradda beeraha ee ku garab yaalay warshada furunka ee Boorama in qaybtiisii service-ka la jeexanayo waana caqabadaha mar walba soo noqnoqda waa dantii guud waxa weeyaan guri dawladii leedahay oo haaf cid loo sharciyeeyay waana soo duuban kartaan waana soo arki kartaan way jeexantaa la igu yidhi cidda bixisana ma garanayo waxa kaloo aan garanayn meeshaan ay tilmaamayo danta guuda ee gegada xoolaha ku taala ee saylada xoolaha ku taala ee ranjiga u yaalo oo ilaa hadda aanan haynin asbaabta ay ku baxayso.